qisooyinku waa ay kala daran yihiin oo ayna kala xanuun badan yihiin. haddaba waxaan idin soo qabanayaa qisadan waxa ayna ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo iyada ka sheekaysay sida ay ku bilaabatay qisadani. magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo aan ku noolaa 4 jirkeygii ilaa iyo 18 jirkeygii aan ku bilaabay waxbarashadeedii kuna dhameystay. mahad wuxuu ka mid ahaa dhalinta aan isla jaan qaadnay inkastoo uu iga weynaa da ahaan 8 sano. haddana sida aad ogtihiinba da'da ragga iyo dumarka farqi baa u dhaxeeya. aan idin bilaabo qisadani sida ay u dhacday. aniga iyo mahad waxaan ahayn laba qof oo ku soo barbaaray jacayl walaaltinimo oo aad u fog, iskuna xog iyo xuuraan ah. waayo waxaan ahayn daris isku deegaan ah, iskuna xaafada. waxaan ahaa walaashiisa oo kale, isaguna wuxuu ahaa walaalkayga oo kale. waxaa dhacday habeenada ka mid ah iyada oo roob ka daayay deegaanka Balcad, dhulkana ay tiigadu buuxisay, inuu iigu yimid gurigayga oo aan ka fogeyn gurigooda. wuxuuna ii sheegay inuu doonayo in aan aadno riwaayad socotay habeenkaasi oo ahayd riwaayaddii lagu magacaabi jiray Shumey oo markaa aad loo xiisan jiray. kama diidi karin waayo waxaan ahayn laba ruux aad isugu weyn. waxaan u sheegay inuu ii soo noqdo si aan isku diyaariyo, isagana hadal kama soo celinin, waa uu iga ogolaaday. waxaa caado inoo ahayd inaan isu heshano riwaayadaha, aroosyada, garoomada ciyaaraha. waxay inoo ahaayeen kuwo nolosheena ka mid ah, waayo isaga ayaa watay gaari noo sahla aadista goobahaasi oo dhan. wakhti yar kadib buu soo noqday anigoo diyaar ah. waxaan u jaanqaadnay xaggii degmada oo ahayd halka riwaayadda 15 Shumey ay habeenkaasi ka dhacaysay, dadkuna ay aad halkaasi u soo buuxdhaafiyeen. laakiin nasiib wanaag anagu waan haysanay tikirkii lagu gali lahaa halkaasi. mahad ayaa goor hore inoo soo jaray intii aan isdiyaarinaynay. kadib daawashadii riwaayadda oo aad u xiiso badnayd ayuu iga codsaday in aan magaalada dibadda uga baxno, waana ka aqbalay. waxaan tagnay aaga u dhaxeeya dugsiga sare iyo mashruuca oo aad u qurux badnayd. marka iyada ah anigu mahad uma hayo wax dhaafsiisan jacayl walaaltinimo, balse isagu midtaa ka duwan ayuu wataa. sida uu igu soo bandhigtayna waa sidan. mahad waxa uu yidhi, walaal ma og tahay in aan aad kuu jeclahay. ilowyahan sidiisa idayla wadaagta elitira xamaankiyo dhaashigii naftaatahay. anna waxaan ugu jawaabay, aniguba waan ku jeclahay, mid walaaltinimo ah. mahad ayaa hadalkiisii qaatay. wuxuu igu yidhi, laakiin aniga waxaan kuu jeclahay si dhab ah. waxaan ku yidhi, oo hadda makayga dheeldheel ah, maxaa walaaltinimo ka fiican? mahad ayaa igu yidhi, waan ogahay in walaaltinimadu qaali ay tahay, laakiin aniga waxa ay la soo gudboonaatay hami iyo qami la xiriira jacaylka aan kuu qabo, in aan nolosha kula qaybsado. taana iga ogolow, waan ku baryaa. runtii waxay igu noqotay fajac. si aan ku aqbalo ma garanayo, si aan ku diidana ma garanayo. waxaanse ka codsaday in uu isiiyo waqti aan ku soo fikiro, waana iga ogolaaday. waxaan ahaa gabar markaas soo kacday oo aan weli cidna la sheeko wadaagin marka laga reebo mahad iyo Cabdisalaan oo mid walaaltinimo ah naga dhaxaysay mooye. haddaba waxaan ka badin waayey in aan aqbalo codsigii mahad uu ii soo bandhigtay. waa habeen isniin ah, jawigu waa mid aad u qurux badan, waa jawi roobeed. waxaan ku kulannay goob gawaarida tagsiga laga kireeyo. anigoo soo sagootiyey gabar aan isku galaas nahay, wuxuu igu yidhi, aan idin qaado si aan hadhow isugu kaliyeysano. waan ka aqbalay. markii aan Khadiijo xaafadoodii geeyey kadib, waxaan beegsaday dibadda magaalada. waxaan xulannay meel aad u qurux badan. tan iyo cabbaar markaan soconay, wuxuuna igu yidhi, maxaad iiga haysaa codsigaygii? aad baan u naxay. waayo ugubnimadu way ii saamixi weyday in aan markiiba yidhaahdo waa aqbalay. markaan cabbaar aamusnaaday ayuu mar kale yidhi, miyaanan u qalmin in aan ku jeclaado? mar kale ayaan argagaxay oo aan ka naxay hadalkan dambe. waxaana ku jawaabay anigoo jaraynaya, dhididna uu iga da'ayo, waad u qalantaa walaal, waana kaa aqbalay jacaylkaagii.
habeenka taariikhdu waxay ahayd 16 bishii 6 1989 wixii ka dambeeyay ilaa iyo laga gaaro 1 bisha 2 1990 waxaan ahayn kuwo lagu daydo ama lagu halqabsado marka jacayl laga hadlayo deegaankan ku noolnahay. nasiib daro waxaana soo wajahday markii ay dagaalada sokeeye Soomaaliya ka dhaceen oo ay beelihii aan ka dhalanay ay dagaalameen oo aan kala fogaanay oo midkeenaba midka kala tabay laakiin uusan aqoon meel uu ku dambeeyo. bisha sawirku kagaya dawadii qalbiga degdegii gaarsiin دعاء قرآن بي وذا قلب ظالم ويوانا ثم تغضو ضدك بي علوم دعاء قرآن بي وذا قلب ظالم عدوك هدى السيطو دمر كلان عينك قلبي سديديو عشقي نبوحي dhacdadii labaad iyo mushkiladii adduunka waxaan ku kulannay magaalada Nairobi ee xarunta u ah dalka Kenya gabar aan isku deegaan ahayn salaan kadib waxaan weydiiyay bal in ay meel ku ogtahay gacaliyahaygii waxayse ii sheegtay arin aad iyo aad iga qiiraysay oo ah in uu waashay oo uu qashinka ururinayo qofkii dumar ah oo dhaayaha saaraba uu magacayga ugu yeerayo. daqiiqado ooyin iyo dhiilo ah kadib waxaan weydiiyay meeshii ugu aragti dambeysay waxayna igu tiri magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan xaafadda Siinaay in cabaar ah ayaan saldhigtay jirdiin u dhowaa goobtii aan ku kulannay gabadhii raadkan xun iigu reebtay su'aalo badan oo aan isweydiiyay kadib ayaan waxaan go'aansaday inaan dib ugu soo noqdo magaalada Muqdisho si aan dhibka ula qaybsado wiilkii ay kala fogaanshahayna qalbigiisa dhaawacday. waxaan u soo ambabaxay magaalada Muqdisho anigoo soo raacay diyaaradda jaadka qaada oo fariisata airportka lambar 50 waxay ahayd xilli ay aad iyo aad nabadgeliyadu u xumayd oo gaarigii aan ka soo raacay kiiloomitir 50 ayaa lagu baartay meel wax yar u jirta kuliyadii la foole waxaan halkaa ku waayay wixii aan sitay oo hanti iyo saaxiiba ahaa anigoon waxba sidan labadii shay oo aan xiranaa mooye ayaan soo galay magaalada waxaan beegsaday guri ay lahaayeen reer aan macruuf ahayn waayo mid walaalkay lahaa oo Madiino ku yaalay ma aadi karo nabadgelyo awgeed markii aan soo gaaray gurigii aan u socday mise waa hore laga qaxay mushkilad badan adduunyadan. waxaan weydiiyay reerkii guri ahaan ugu xigay waxayna ii sheegeen in ay yakhshid u guureen waxaan qaatay tilmaantii la isiiyay waxaan beegsaday meeshii la ii tilmaamay shiddo iyo mushkilad badan kadib waxaan ku guulaystay in aan helo gurigii ay ku noolaayeen macruufkaygii hase yeeshee qofkii u horeeyey oo i arkaa wuxuu igu yeeray magac beddelan oo aan aad u dhibsaday waxaana go'aansaday in aan dib uga laabto iyagoo ila sii hadlaya ayaa dhabarkii ka qarsoomay waxaan beegsaday dhanka
siinaay oo aan isleeyahay bal ka doondoon kii aan dalka dartiisa ugu soo laabtay maalinkaa ima suuragelin in aan helo oo gabalkii ayaa iga dumay aniga oo aan helin xataa cid ii sheegta waxaan garaacay albaabkii iigu dhowaa markii gabal ku dhacay waxaase iga furtay qof aan aad isugu faraxnay alla waa hiblaayo alla waa khadiijo alla waa hiblaayo alla xagee ka timi iyo nairobi walaal soo gudub qubayso iyo wax cun gacalo ay ku dheehan tahay kadib ayaan iswaraysanay waxaan u sheegay ujeeddada socdaalkayga iyo inay caawiso si aan u helo wiilka dartee u dhibaataysan waxay ii sheegtay in ay reerkoodii u qaxeen magaalada beledweyne hase yeeshee uu joogo wiil ay walaalo ahaayeen oo gaari wata oo labadii maalmoodna uu mar yimaado oo ka shaqeeya isla beledweyne waxaan ka codsaday in ay i tusto meesha uu ka baxo si aan ugu raaco beledweyne maalin kadib ayuu yimi markii aan la kulmay wuxuu ii muujiyey weji furan iyo farxad wuxuuna ii sheegay inuu beri tegayo laakiin wuxuu igala taliyey in aan iska joogo waayo qadiyadda jirta waxaa laga yaabaa in ay dhibi ii geysato wuxuuna iga ballan qaaday in uu soo noqonayo isaga oo wiilkii ay jeclaan jirtayna xamar keenayo si aan u kulanno maalin xasuus dhiilo iyo farxad xambaarsan 4 bishii 9 1993 goor subax ah ayaa albaabka la soo qarqaraacay waan furay waayo waxaan ahaa qofkii ugu dhowaa waxaa indhahaygu qabteen mahadoo timihii ku baxeen aadna u caatoobay oo dhalan rogmay naxdin iyo farxad maxaa dhacay walaalkiisa cabdikariin oo markaa waday ayaa markaa ku yidhi ma garanaysaa gabadhan wuxuu yidhi haa waan garanayaa waan ku soo booday oo isku duubay daqiiqado kadib ayuu cabdikariin ii sheegay inaan ahay qofkii ugu horeeyey oo uu garto muddo 2 sano ah waxaan ka codsaday in uu iiga tago si aan bal u darso dareenkiisa iyo sida uu wax u tabanayo intii hadalka aan wadanay cabdikariin ayuu iga soo dhex galay isagoo igu yidhi xaggee iga aaday maxaad ii dishay xaggee igu ogeyd isagoo sii dabadhigay su'aalo badan oo aan garan waayey si saxriira oo dhibaato ay ku jirto ayaan ugu warceliyey xanuunka i haya waa xanuun idamka goor walba walaal iyo waalidna aan ila qaybsan karin yaan u sheegtaa dhibta caashaqa yaan ka weeshadaa jacaylkaaga si kastoo ay tahay qalad ma lihid adiga mana awoodo inaan qof xun kugu tilmaamo adiga dabka si walbuu u kulul yahay haddana dadka kama maarmaan waxaan aqriyaa farin walboo jacayla waxaan dhegaystaa hees walboo i khusaysa keligay ayaa murugooda waan ogahay ima necbi laakiin ima naxdid waayo waxaan ku joogsadaa dab agtaada yaalla adigoo damin kara ayaad haddana igu daawataa ma hadalkaygaan ku farxad gelin ma muuqaygaan ku farxad gelin keliya inaan ku jeclaado oo aad iga cararto maxay ku farxad gelisaa adiga hadalkaaga ma xuma laakiin dhaqankaad igula dhaqmayso maxaa xumeeyey ma raba hadal gab kugu ah inaan kugula hadlo mar walba raaligelin ayaan kaa codsanayaa ii dulqaado si aan dhibteeda uga hadlo kuma dhahayo waad xun tahay laakiin isku day in aad fahanto nafta adiga kugu jirto inay anigana igu jirto mar walbana ogow inaan ku jeclahay anigoo su'aalahaasi isdaba jooga ah aan fahmi waayey muddo kadib ayaan ku yidhi waa anigan kuu soo noqday mar dambena kaa tegi maayo waxaana go'aansaday inaan u kaxeeyo halkii aan ku noolaa ee nairobi oo aan la dhunto waayo waxaan ka baqay in reerkoodu ay iga diidaan waxaana arrintaasi kala tashaday khadiijo oo ahayd saaxiibtayda waxayna tidhi ku dhaqaaq wixii dhaqaale ahna aniga ayaa kugu saaciideeya waxaan u yeeray walaalkiisa cabdikariin
oo aan u sheegay in uu igaga tago oo safarkiisa uusan baajin ee markaa dambe oo uu soo noqonayo oo uu kaxeeyo maadaama bani'aadanimadu ay ku jirto in la isbadbaadiyo kadib waxaan isu diyaariyey safar qarsoodi ah waxaan ka ambabaxay magaalada muqdisho safar dhinaca dhulka ah anigoo sii raacay gaari u socday gobolka Jubbada Hoose xaruntiisa Kismaayo markii aan tagnayna waxaan ka sii raacay diyaarad ilaa iyo Nairobi durba manasan oo waxaan geeyay dhakhtarka dhimirka qaabilsan hase yeeshee wax weyn uma tirin kaliya daawo dejisa ayay isiiyeen cid ma dilo cidna ma caayo sidaasan ku wada noolnahay isagoo dhimirka aan caadi ahayn iyo aniga oo isaga uun eegta waxaan daris la ahay jacaylkiisa isagoo nin iyo ahayn waayo nin waalan waxba kuma xirmaan waxna kama furmaan reerkoodu waxay ii yaqaaniin saaxiradii wiilkooda waashay reerkayguna waxay ii yaqaaniin tii sixirnayd markaan darsay waxay Soomaalidu sixirku u taqaano waa jacaylka dhabta ah haddaba muddo 12 sano ah waxaan ku wada nooleen aragti oo kaliya iyo eed aadane oo aan ka baxsan la'ahay waayo isagu waxba garan maayo waxa ay leeyihiin oo waa qof ku nool daawo iyo waliba inuu aniga ii ag joogo kaliya adduunyadu yaa badana adduunyadu wax walba way ku toostaa ee Ilaahu u gargaar dadka isjecel